talaabaday soo qaadeen maanta dhaweytay ku dhawaaqeen guddideena caafimaadka ee karantiimada ahayd daba shaqo marka la qabto marka la arko inay ka soo baxeen dhaliilo waa laga gaashaantaa dhaliilo badan baa soo baxay dadaalkeen wadnay ahayd karantiimada waa mid markii horeysta waxa soo baxday inaynu horta meel dadka lagu karantiimayaba aanaynu samaynin waxaa soo baxdo kale dadka la soo qaadayo ee la karantiimeynaya basas bay soo raacayaan kuraasay taabanayaan albaabkay taabanayaan baski haddana dad uu iyaga dhibo dadku uu guriyaa marka ilaahay naga jeermiska virus uu la socdaa baski waxaa kala soo baxday in haddana aynu meel aynu hadday marka 10 diyaaradood dameera 10 flight dhowr boqol qof bay noqonayaan dhowr boqol qof meenu ku accommodate garayno ma hayno oo ladkii u horeeyay ee la 3 flight ba dhibaata inaga la kulantay inta waxa dheer haddaynu qaar insha Allah laga helo qaar laga helo uma hayno meel gaar ah cusbitaal aan jiifino wada arkaysaa marka adduunka cusbitaal cusub baa la sameynaya oo patientska hore dal dhex gelin kari maayo waxaasoo dhan awood uma lihin maanta in cusbitaal gaar ah sameyno inaynu marka dadku 500 gaaraan aynu meel ku karantiimina ma helino marka waxaan ku talin lahaa inaynu sida adduunku bay flightski u joojiyeen inaan flightska imaaraadka I mean Ethiopia Airlines and totally hakino muddo ilaa 2 week ayaan ku talin lahaa taasay nooga hawl yar juhdiga badan ee keen u baahannahay inuu gelino rakaabka yimaada rakaabka waxa imanaya Soomaaliya transit waa imanaya oo deeyuna mar haddana airport nagu dhaafeen oo connection jirin oo laga yaabay gaari raacaan dama xaniibi karno ma hayn karno marka waxay leedahay inaan solution u fiican waxa weeye inaynu joojina Ethiopia jaamacadii way xidhay arday badan oo reer Soomaaliland baa meesha ka dhigan jirtay amar baa la siiyay idama hayn karnee wixii ajnabi oo dhulkiina ku noqda ardayda qudooda ilaa kunba gaarsay kun iyo dheeraad ee noqonaysaa laba arrimood bay nooga baahan yihiin mid waa mid sidii horta loo facilitate ganaha inay dalka ku soo noqdaan si loo abaabul lahaa oo safaaradu waxa weeye inay organize garayso wasaaradda khaarijiga ay kala shaqeyso sidii loo keeni lahaa talabaadna waxa weeye sidii iyagana meel loo geyn lahaa oo loo baari lahaa inuu diyaar garowno maadaama ay caddaatay Ethiopia in case badan laga helay